maalinka aakhir markaan u tagna ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu noo oofinaya. intaas kadib ilaahi wuxuu leeyahay xadiisulqudsiga, faman wajada khayran falyaxmad illah, qofkii khayr soo helo, wanaag helo, oo yacni kitaabkiisa la gadoonsiinaya kitaab wanaagsan u noqdo, oo yacni wixii oo maxali lagu abaalmarinaya thawaabkiisa farax geliyo, qofkaas ilaahi ha ku mahdiye, ilaahi ha ku shukriye, waayo ilaahi ayaa waafajiyey. faman wajada gayra dalika, qofkii helo waxaan intaas ahayn, qofkii xumaan helo oo thawaab xun helo oo maxaa la jira ay u soo baxdo marka inuu naarta u galaayo, qofkaas nafsadiisa ha eedeeyo, waayo asiga ayaa meesha isdhigay. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. walaalyaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay mahad u sugnaatay oo nagu deeqay fursad aada u qiimo badan. maantana insha allah halkan waxaan rabaa inaan ka bilaabo muxaadaro oo taxano ah oo ilaa 4 xalqo ku saabsan oo ku kooban. waxayna ka hadlaysaa xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu lahaa laa taxqiranna min almacruufi shay-a. cinwaankeena waa kaas weeye, waana xadiid nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugnaada uu leeyahay hayasin oo ha xaqirin wanaaga si walba u yaryahay. laa taxqiranna min almacruufi shay-a, wanaaga hayasin oo ha xaqirin si walba u yaryahay. sababta ah camalka aad janno ku gali doonto rabbi subxaanahu wa tacaala unbaa og. camal yar miyaad ku gali doontaa, camal weyn miyaad ku gali doontaa, allahu aclam. marka waxaa la doonaya qofka muslimka ah camalka si walba u yaryahay iyo si walba u weyn yahay labadaba inuu gurubsado uusan yasin. xalaqadeena cinwaankeeda waa kaas wey. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba. rabbi subxaanahu wa tacaala aayadan wuxuu leeyahay man camila saalixan, qofkii sameeyo camal wanaagsan, camalkaas ha yaraado ama ha weynaado, min dakarin aw untha, ama qofka ha ahaado qof lab ah ama dhedeg, rag iyo dumarba. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday isagoo qofkaas mu'min ah falanuxyiyannahu xayaatan طayiba, nolol wanaagsan in la siin doono. marna ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nusula. kuwa iimaanka laga helay haddana camal wanaagsan qabtay, camalkaas ha yaraada ama ha weynaado, jannada jannaatulfirdows ayay waxay u tahay martaqaad iyo soorid ee loogu dhigay. marna ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waalbaaqiyaatu الصaalixaatu khayru cinda rabbika hawaaban wakhayru marada aw wakhayru amala. ilaahi subxaanahu wa taala wuxuu leeyahay waxyaalaha haray oo baaqiyaadka oo saalixaadka rabbigaa subxaanahu wa tacaala agtiisay ahaadeen. camalkan ha wanaagsan, camalkan ha yaraado ama ha weynaado, hadduu wanaagsan yahay aakhar wuu ku anfacaya. marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay laa taxqiranna min almacruufi shay-a, wanaaga hayasin si walba u yaryahay, 4 arrimood ayaa laga qaadanaya ama 4 arrimood ayaan ka faa'iideysanaynaa. arrin walbana ama mid walba aan ka faa'iideysanaynin waxaan ka dhigi doonaa hal xalaqo ayaan ka dhigi doonaa. arrinka koowaad oo aan ka faa'iideysanayna xadiidkan oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uuna leeyahay ku dadaala camalka haba ha yaraadee, waxaad ogaataa mar walba bini aadanka camalka kasoo fulaayo, bini aadanka camalka kasoo fulaayo uu sameynayo waa maktuubun cinda allahi. ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa wuu qoran yahay camalkan. camalkan ha yaraado ama ha weynaado ama ha xumaado ama ha wanaagsanaado, ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa wuu qoran yahay camal walba oo shaqo walba kasoo fusho bini aadanka. marka haddii camalkaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qorayo kan yar iyo kiisi yar iyo kiisi weyn, kiisi xun iyo kiisi wanaagsanba la qoraayaba, waxaa la doonaya marka camalka yar haba ha yaraada inaad ku dadaasho. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qur-aanka
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق مالك آخر مركي لقارو ummadda waxaa loo soo saaraa kitaab qof walba kitaab ayuu leeyahay qof walba diiwaan ayuu leeyahay diiwaankaas waxaa lagu qoray camalka aad soo qaban jirtay aad soo shaqeyn jirtay hadduu xun yahay hadduu wanaagsan yahay hadduu yar yahay hadduu weyn yahay kitaabkaas wuu hadlayaa kitaabkaas ilaahay wuxuu leeyahay hada kitaabuna yantiqu calaykum bilxaqi kani waa kitaabkeena wuxuuna maanta uu ku hadlayaa uu ku dhawaaqayaa dushiina si cadaalad ah si xaq ah qofna lama dulminayo ilaahay wuxuu leeyahay inaa kunaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun anagu waxaan ahayn kuwa guuriye oo qoro waxaad samayn jirteen marka maalinka aakhare ummadda waxaa lasoo hordhigi doonaa kitaab uu ku qoran yahay camalkooda kiisa wanaagsan iyo kiisa xun camalkooda kiisa weynaa iyo kii yaraa marba haddii camalkaa lasoo xaadirinayo waxba aan laga soo tegaynin camalka kiisa yarna ha ka tagin aakhare siduu kugu noqdo miisaanku kugu cusleeyo marna ilaahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wawudica alkitaabu fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih maalinka aakhare waxaa la keeni doonaa kitaabaa la keeni doonaa kitaabkaasay dadka dembiilayaasha mujrimiinta dembiga soo sameyn jiray fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiihi waxaad arkaysaa ayagoo ka baqaya wax ku qoran laanna waxay ogyihiin kitaabkan inuusan wanaag ugu qornayn wanaag aan ka horin ayay ogyihiin kitaabka ay ka baqayaan markaas waxay leeyihiin wayaquuluuna yaa waylatanaa maa lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha alla hoogeeni halaageeni kitaabka maxaa ku dhacay maxaa u sugnaaday laa yugaadiru sagiiratan mid yarna kama tagin walaa kabiiratan mid weynna kama tagin ilaa axsaaha ilaa wuu koobay dembigii yaraa iyo dembigii weynaa wixii dhan buu u keenay kitaabka alla kitaabka maxaa u sugnaaday kitaabka muxuu ahaa marka aayadan waxaa ku cad oo rabbi subxaanahu watacaala uu leeyahay kitaabkaas inuusan ka tegaynin acmaasha teeda yar iyo kiisi weyn camalkaa hadduu xun yahay uu weyn yahayna waa la keenayaa camalkaada hadduu xun yahay uu yar yahayna waa la keenayaa camalkaaga hadduu wanaagsan yahay uu weyn yahayna waa la keenayaa camalkaaga hadduu wanaagsan yahay uu yar yahayna ilaahay subxaanahu watacaala maalinta aakhare wuu keenaya kitaab aa lagu qoray marna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah qofkii soo shaqaysto oo soo camal qabto wax ka yar hataa dhuurcas oo camal wanaagsan oo khayr oo wanaag ah maalinka aakhare wuu arkaya addoonka lagama qarinayo hortiisaa la keenaya waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah qofkii soo shaqaysto soo kasbado camal yar oo xun oo dhuurcas ka yar xitaa wax yarba allah ka dhiga haba ha yaraadee waa la keenaya camal xun hadduu yahay si walba u yar yahay waa la keenaya maalinka aakhare labaduba wuu arkaya addoonka kiisi wanaagsanaa oo yaraa kii xumaa oo yaraa dhammaan waa la keenaya marna ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayri muxdara wamaa camilat min suu maalinka aakhare way helaysaa naf walbo waxay soo shaqaysatay oo khayr ah isagoo xaadir ah iyo wamaa camilat min suu iyo wixii xumaan ay soo shaqaysatay ay soo kasbatayna waa loo keenaya horteeda ayaa la dhigaya tawadu low ana baynaha wa baynahu amadan baacida nafta waxay jeclaanaysaa markaasi xumaantan ay soo samaysay qurunka ay soo samaysay macaasida ay soo samaysay oo aadka u yaraa in laba dhexdooda la kala dhigo muddo aada u dheer yani in laga fogeeyo in laga dheeray ayay jeclaanaysaa ilaahay wuxuu leeyahay wayuxadirukum allahu nafsa ilaahay wuxuu idinkaga digayaa nafsadiisa iska ilaali rabbi subxaanahu watacaala waayo ilaahay cuquubadiisu ma adkeysan kartaan maxaa la jira cadaabkiisu ma adkeysan kartaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ilaahay naftiisu idinkaga digaya iska ilaaliy oo xumaanta iska ilaaliy marna rabbi subxaanahu watacaala xadiiث اlqudsi wuxuu leeyahay inamaa hiya acmaalukum ibnu aadamow waxaan aad qabanaysaan oo aad shaqaysanaysaan oo aad ku dadaalaysaan xumaan iyo samaan wanaag iyo xumaan haweynaad ama ha yaraa waxaan aad qabanaysaan inamaa hiya acmaalukum intan waa un camaladiina waa waxaad soo shaqaysateen waa waxaad soo kasbateen waa waxaad kusoo dadaasheen waa waxaad waqtaad kusoo lumiseen wey uxsiihaa lakum ilahi wuxuu leeyahy aniga waan idin koobaya
ثم أوفيكم إياها كدب وإذن أوفنايا إلهي وحوال بوالو جينايا ميلا وعلى قرايا ميلا لدقايا مالك آخر مركان أوتقن الله سبحانه وتعالى ونو أوفنايا انت اسكدب إلهي وحولي حديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله قفك خير سو هلو وناك هلو يعني كتاب كيس لق دونسينا كتاب وناك سو نقضو يعني وحي او محل لغو أبال مرنا ثواب كيس فرح قليو قفكاس إلهي كو مهدي إلهي كو شكري واي إلهي وافجيه فمن وجد غير ذلك قفكي هيل وحان انتاس اهيد قفكي حمان هيلو او ثواب حن هيلو او محال جري اي اصو بحضو مركا انو نارت وقلاي قفكاس نفسديس ها ايدي وايو اسيقا يا ميش اسدقاي اسيقا حمانت كسو دادالي اسيقا محال جري خير كسو يريستي خير كسو يسي جري كيسي يرن وكتاق جري كيسي وين وضيع جري مركا قفكاس اسيقا يا ميش اسدقاو مركا اسيقا اس ايدي وي حديث كلا النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه حي مالك آخر ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله رب قف والبمالك آخر مركي لقارو ربي يسول الله أسيقي إله سبحانه وتعالى وحقوله هاي ترجمانا ملهن قف كوكا لتفسيره ورك كوكا لقاضي إلهي وقينا إلهي نكسو قاضي ملهن توصل والله ليس ربي سبحانه وتعالى نبينا انت اسكدب وحوليه هاي أدونك وحوفيرنا يا دنكيس ميدك فلا يرى إلا ما قدم وحو أركايا وحو حرمرسدي عملك وحو مرسدي شقده وحرمرسون با وأركايا حضر دنك بدح أيو فيرنايا وحو أركايا وحو حرمرسدي وناك يو خير أما الشر وحو حرمرسدي يو أركايا حرتيسو فيرنايا وحو أركايا نار أو سو قابليس تلقاء وجهه نار أو سو قابليس نو حرتيس نار أي جرتو نبي عليه الصلاة والسلام انت اسكدي وحو داهي فاتقوا النار ورنارت اسكاغا جيرو او اسكاغا إلاليو oo ka cabsada walaw bishiq tamr hal timir jeexeed Allah ka dhigo oo wax yar aad u yar Allah ka dhigay war intaad naarta iskaga ilaalin karto oo aad ka doorsan karto oo iskaga maxal jir dhaxdiin wax aad dhigi karto ku dadaal hatta timir jeexeed timirta aad u yar tahay ayadoo la kala jeexayna way ka sii daranta aad u yar tahay waati nabiga kaleey salaatu salaam dhihi jiray فبكلمة طيبة وركلمة وناكسن حضر وناكسن أرح وناكسن الله كدقه ورنارتي إله إسكاكي إلالي وديه جيري مركا حديث كان حلقة كواد مركا وحيكو سابسان تحاي وحوال بؤاد سمينيسو إله اكتسوا الله قرايا حيا راضا أما هوين هذا مركا كود ذال حدي محالي جيري الدنبقا كيسير لكينا ين وناقا كيسير إن لكينا كود ذال وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته